ugu yaraan 2 saraakiil silsare ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka 40 qof oo kalena uu dhaawac ka soo gaaray qarax ismidaamin ah oo lala eegtay xarun booliis oo ku taala magaalada Jabahar ee gobolka Balochistan ee dalkaasi Iran. Hamdan Bamari oo ah gudoomiyaha gobolka Balochistan ee dalkaasi Iran ayaa sheegay in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa saldhigga booliiska ee magaalada Jabahar, isla markaana ay ciidamada saldhigga ay ka hortageen in gaariga qarxay oo isku dayay inuu gudaha u galo saldhigga uuna ku qarxay afaafka hore ee booliiska. Sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa la arkayay goobta uu ka dhacay qaraxa oo qiiq badan ka baxay. Mas'uuliyadda weerarkan ayaa waxaa dhabarka u reetay ururka loo yaqaano Ansar al-Furqan. magaalada Jabahar ayaa ku taal koonfur bari ee dalkaasi Iran, waxayna u dhowdahay xadka ay Iran la wadaagto Pakistan. 2010 ayaa ismidaamin sidan oo kale waxaa ku dhintay 41 qof halka 90 kalena dhaawac ka soo gaaray isla magaaladan, waxaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi kooxda jihadoonka Jundullah. bishii September ee sanadkan ayaa koox hubeysan waxay weerar ku qaadeen gobolka Hijaz oo ciidamada militariga ay ku soo bandhigeen gaadka ciyaar, halka ay ku dhinteen tiro ka mid ah askarta, ku dhawaad 12 kalena ay ku dhaawacmeen. ayadoo mas'uuliyadda weerarkaasi ay sheegteen kooxda isku magacaawday dowladda Islaamka ee ISIS. bishii Juun ee sanadkii 2017 ayaa weerar loo adeegsaday qarax, sidoo kalena la sheegay in bartilmaameedkiisu uu ahaa xarunta sharci dejiyaasha ee ku taala magaalada Tehran. waxaa ku dhintay 18 qof, sidoo kalena waxa uu khasaare ka soo gaaray in ka badan 50 qof. Cabdi Sheekh Xasan, Somali Cable, Nairobi.